dabayaaqadii qarnigii 18aad bilowgii qarnigii 19aad Soomaalida waagii dilaacaba waxa uu ahaa waawaray iyo dagaal joogto ah waxa ay la dirirayeen gumaysta ka taagroon waxa ogsaday dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonkii daraawiisheed oo 20 sano ka badan u babac dhigayay gumaystihii reer Yurub ee qaaradda Afrika qaybsaday 100 sano kadib waa taa Soomaalidu taalooyinkii xusuusta halgamayaashii mar kale dib u suraysa waa goor habeennimo ah wadaniyiin Soomaaliyeed oo adeegsanaya wiishash qowdhamaya ayaa suraya taaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ahaa hogaamiyihii halgankii gobonnimadoonkii daraawiishta boqol sano maanta oo kale waxaa la joogaa kolkii ay daraawiishu u naafatay duqayntii diyaaradaha ee gumaystuhu ku xasuuqay dadka Soomaaliyeed taariikhyahanka caanka ah ee Siciid Saalaxna waa ka 100 sano kadib isaga oo duubkii caddaa ku jooqan hoos taagan taaladii sayidka si uu xus iyo xusuus ahaan uga dulgeeraaro ciil taaba guday baan isdul taagayaayo dhacdo taban xogteedaan soo tebinayaayo tira gaadhay 100 baan ku temedinayaayo taalada darwiishkan ka tiraabayaayo waa goobtii 6aad aan u joogo maanta xuska 100 guurada duqayntii dad Soomaaliyeed lagu duqeeyey diyaarado gumaysigu Afrika tii ugu horeysay waxaan maanta taagnahay taaladii Muqdisho oo tusaaleynaysay daraawiishta dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka Siciid Saalax Axmed waa barasare qoraa abwaan filim sameeye iyo taariikhyahan cilmi baara faneed ah oo habeen iyo dharaarba ku fogan horumarinta afkeenna hooyo anigu waxaan ka tirsanaa weligay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ama macallinimada fasalka oo toos ah ha noqoto ama maamulka aan soo gaadho markii dambe ilaa dugsi maamulo dugsi sare ilaa ama tababar macallimiineed ilaa macallin dugsi dhexe aan iraahdo ka soo bilaabo ilaa maamulo dugsiyo kala duwan ilaa madaxa qaybeed ilaa ugu dambeynta agaasimaha waaxda barbaarinta ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta baan ahaan jiray waa isla macallinimadii waxa uu da'yarta baraa duqaydana xusuusiyaa abaalkii lama ilaawaanka ahaa ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed u galeen duubcadii daraawiisheed halabuurka qaabeynta iyo ka qayb qaadashada filimkii darwiishka Soomaaliyeed ee soo baxay 1982 ayaa kamid ah guulihii uu Siciid duubka u xirtay kana soo dhalaalay filimkaas oo ay maalgelisay dawladdii Soomaaliyeed ee xilligaasi jirtay waxaa soo saaristiisa lagu bixiyay dadaal dheeriya oo hormuud u ahaa Ustaad Siciid Saalax waxaana waqti dheer qaatay xog ururinta helidda dad matali kara astaamihii halgamayaashii daraawiishta oo uu sayidku ugu horeeyay saaxiibayaal ka yimid dalka Mareykanka ayaanu la bilownay oo rabay filim kooban oo documentary iyo feature isku jira qaabka ay u soo dhigeen in laga sameeyo dawladdii Soomaaliyeed oo markaa jirtay waxay dooratay oo ay u sheegtay in filim buuxa oo feature nooca la yiraahdo oo la matilo laga sameeyo dhaqdhaqaaqa daraawiishta waxa waayadaas soconayay filimada gumaysi caabiga iyo halganada ee adduunkaba ayaa xiisa lahaa waxa waayadaa dhammaaday Cumar al-Mukhtaar oo Liibiya halgankeedii daraawiishtoodii waaga camal laga sameeyey waxaa waagaa la sameeyey oo in yar ka horeeyey Gandhi of India dhaqdhaqaaqii Mahatma Gandhi uu India ka sameeyey filimadaasaan dersi jiray waddanka gudihiisa ayaa intiisa badan lagu duubay cilmi baadhistii markii hore loo tagay meel kasta oo daraawiishtu degtay ama dadkii soo maray intii ka noolayd meel kastay joogaan
ama waxa laga qoray akhriskoodu taasuu iska gogoldhigga hore ahayd waa sida wax u qormeen. qoraalka filimka waxaanu ku soo qoray aniga iyo nin David Koff la yidhaahdo gurigiisa oo ku yaalo ariga Maraykanka stateka Maryland magaalada Silver Spring. halkaa markuu ku soo qormay intii horena cilmi baarista iyo safaradu ay aad u badnaayeen waxaanu iyaga kala tagnay. waxaa xarun filimka u ahayd magaalada Sheikh la yidhaahdo ayaa xarunta ugu weyn oo lagu qaadayay oo deegaanada aan dhismayaasha qaar dhismayaaloo taariikhda ku shuqulana Sheikh waa leedahay. meelaha bannaanada ah ee dhulka hawdka iyo dhulka nugaasha iyo dhulka buuraleyda intaba waa laga helaa wax u dhow oo lagu subti karo. waxay kaloo ahayd Sheikh oo ay uu ku samaysay filimkan noo geeyey meel aan la seexin karo oo ay ku noolaan karaan ilaa 600 oo qof ama 1000 qof iyada oo aan kharaj kaaga bixin meelay seexdaan oo aadan hudheel uga baahan. waayo dugsiyada boardinga oo la jiibsado waaweyn oo ku yaala ayaa tiradaas soo sariira ah ku siinayay. waxaanu kaloo u degnay uu saldhigu ahaa markii waddada Sheikh buurta la samaynayay sharikaddii talyaaniga ahayd oo dhammaysay ayaa saldhig dhismo habaysan oo leh shidaalkiisa meesha lagu shubanayo meesha xafiisyadiisa laga shaqaynayo guryaha la degayo sida uu ahaa ayaanu la wareegnay. kabacdina waa ka soo guuray taleex baanu qaybtii kale ku qaaday waa ka soo guuray eyl iyo qalcadaheennadaanu nimi waa ka soo guuray xamar baanu in ka qaadnay. labadii muuqaalo ugu dambeeyey oo naga qabyada ahaa oo qaar xafiisyada ingiriiska loo baahnaayo qaabkooda laga yaabo inaanaan ka helayn Bombay baanu ku qaadnay oo India. filimka waxaa markaa dambe qandaraaskiisa qaatay company India NBC la yidhaahdo Nicholas Business Corporation ayaa qaadatay. hadday qaateen saldhigga India ayaa lagu safeynayay. waxaan halkaa la joogay oo xilliga waxaa la yidhaahdo post productionka tafaftirka iyo daabacaadda iyo howlaha codaynta oo dhan ay soconayeen muddo 10 bilood ah. dad Soomaaliyeed oo saaxiibadaydii maamulka dhowr jeer waa igala soo qayb galeen. dad kaloo jilayaasha ka mid ahaa oo codaynta gelinayay marbay toddobaadda ila joogeen. halkaas hawshiisu ka socotay markii ugu dambeysay oo bishii 3aad 1985 aan kobigii la daawanayo waddanka iyo hareerihiisa yimi laga soo qaaday meesha ayaa noogu dambeysay in aanu wax war ah ka helo filimka samayskii. sidaas waa siduu ku samaysmay. halkii Siciid sugayay nasiina iyo in jiilasha soo koraya ee Soomaaliyeed ka faa'iideystaan xogaha ku jira filimkaasi ayay in ka badan 30 sano ku qaadatay goobidda filimka oo ku lumay duruufo badan oo qaranjabkii Soomaalida ka dhashay. dabayaaqada sanadkii dhammaaday ee 2019 ayuu midigtiisa soo galay muuqaalka filimkii Darwiishka Soomaaliyeed waxa uuna haatan ku howlayahay dib u habeyntiisa. waxaa hadda la helay waanu helay filimkii intii la daawan jiray in la eg oo dhab ah oo qormaysan oo negative waxa la yidhaahdo ah. negatifeka isaga lama daawado waa kii kamirada laga soo saaray oo habayn yar lagu sameeyey oo laga daabacan karo marba filimka inta aad rabto oo la daawado. laakiinse weli codkiisuna qayb yahay maxaan ku dhahay sawirkuna qayb yahay. waxaan soo helay oo in aan filayo intii uu ka koobnaa ay tahay filimku filim dheer buu ahaa 2 qaybood baa loo daawan jiray 4 saacadood iyo 39 daqiiqadood buu socon jiray. qaybina waxay socotaa 2 saacadood iyo 19 daqiiqo qaybina waxay socotaa 2 saacadood iyo 20 daqiiqo. 27 giraanood oo giraanaha waaweyn oo aad ku arki doonto sawirada markaan gacanta ku hayo laga yaabee ayaa markaad baadho
maqaaladii laga qoray hadda intii la helay ayaa ahayd meesha waxaan ugu tegey iyo in la eg oo cod ah. inta sawirka ahi waa wada fiyowdahay, inta codka ah qaar baa xumaaday oo gubtay intii uu aan la keenin meeshan lagu kaydiyo. sidaasay xaaladiisu ku sugan tahay. wixii in dad arko oo la daawado oo hawshii loo sameeyey uu fuliyona waxay ku xidhan tahay wixii dhaqaale la geliyo. 100 sano kadib Soomaalidu waxa ay maanta xusayaan duqeyntii diyaaradaha waxgumaada ee reer Yurub u geysteen dalkooda, taas oo ah fariin ballaaran oo muujinaysa inaanu cidla ku dhicin dhiiggii udgoonaa ay halgamayaashu u hureen dalkooda, oo ay maanta jiraan Soomaali xusuusan oo xusaya halgankoodii. allow dunida tusan iyo nabad lagu tanaadaa. in la wada tasooba waxba ima tarayse, allow dunida tusan iyo nabad lagu tanaadaa. nabad lagu tanaadaa.